عليكم ورحمة الله وبركاته ومحمد روبرتو سنة كستا وحا دونيدا lagu xusaa maalinta caalamiga ah ee afka hooyo oo ku beegan 21 Febraayo 2025 waxaa khadri mudan in afkayna hooyo oo ka mid yahay afarta luqadood ee Sahaaraha Afrika ka hooseeya kuwaasoo lagu sameeyay cilmi baaris balaaran afkaasi waxay kala yihiin Swahili, Soomaaliya, Hausa iyo America. Hadda waxaa ii suur gashay in aan wareys ku leeysto Cabdiraxmaan Cabdidoon oo ka mid ah aqoonta Soomaaliyeed ee qorta afka Soomaali. Cabdiraxmaan soo dhawow. Mahadsanid Maxamed Roberto. Cabdiraxmaan adigu waxaad ka tirsan tahay mas'uuliyiinta akademiyada AGA bal maalinta caalamiga afka Soomaaliga maxaa noo sheegi kartaa? Xuska maalinta caalamiga ee afka hooyo waa munaasabad ay sanadkii 1999 hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan waxbarashada iyo dhaqanka ee loo soo gaabiyay UNESCO ay ilaamisay ay tiri ummadaha adduunka qolo walbaba afkeeda hooyo ha xusta maalintaas waxay ku aadan tahay sanad walbaba 22 February munaasabadaas sababta loo yagleeleen waxa weeye berigaas ayaa hay'addaas UNESCO waxay sheegtay in sanad walbaba sanadiyaan oranay in 2 toddobaad oo walbaba uu af dhinto adduunyadan maaha sanad walba maaha bil walba 2 toddobaad oo walbaba af baa dhintay yiraahdeen marka si loo dhowro afafka kuwa ugu yaryar xataa ama aan iraahdo lahjadaha kuwa ugu yaryar ee adduunyada jira si aysan u dhimanin maxaa yeelay waa hanti umadeed waa hanti oo aadanaha uu leeyahay waaye marka waxa la yiri afkaas hal xuso hal horumariyo hal buunbuuniyo hal weyneeyo si maaragtay uusan meesha uga bixin marka xuskii ugu horeeyay waxa la qabtay sanadii ku xigtay 2000 markay ahayd sanad walbaba UNESCO waxay sameysay hal ku dhig caalami ah laakiin ummad waliba ama dal waliba ama urur waliba waxa loo ogol yahay in ay sameystaan hal ku dhig iyaga u gaar ah geeska Afrika dhulka Soomaalidu ay degto ayaa waxa laga xuseeyay ilaa iyo markaas xusuuskaas si joogta loo qabanayay hay'adda ama naadiga qanileedii hal-abuurka Soomaaliyeed oo dadka inta badan ay u yaqaanaan Somali Pen ayaa bilowday markii hore markii dambena waxaa dib ugu soo biiray akademiyada goboleedka afka Soomaaliga ee marka la soo gaabiyo loo yaqaano AGA sanadkan UNESCO waxay sheegtay in hal ku dhig uu noqdo 25 guuradii inay noqoto waa jubileum wax la yiraahdo ama jubilee wax la yiraahdo oo 25 sano waxa markii ka soo wareegan lagu xuso marka sanadkan waa sanadkii 25aad oo xuskaas la qabanayo ka akademiyad ahaana sanadkan meelo badan lagu qabtay geeska Afrika Soomaalida degto meelo badan oo kamid ah mid folka lagu qabtay maalinta Jimcaha ee 22 Febraayo akademiyadu waxay qaban qaabisay xus weyn oo lagu qabanayo aaladda Zoom-ka meelo badan laga soo gali doono xaaladda afka Soomaaliya hadda waa sidee xaaladda afka Soomaaliga halkuu marayaa hadda hadii la yiraahdo anigu waxaan dhihi lahaa meel fiican uu marayaa afkeena weligiisba inta uu jiray waxaa weerar ku ahaa afaf kaleeto haba ugu badnaaday boqolaalkii sano ugu dambeysay afka Carabiga ugu badnaa oo diin ahaan iyo dhaqan ahaan iyo daris ahaan aad iskugu dhownahay waad arki karto afaf ereyo badan oo Soomaali ahaa in ay barabixiyeen oo afafka Carabiga aan qaadano tusaalaha ugu sahlan oo la soo qaadan karo waxa weeye maalmaha sabti axad isniin talaada arbaca khamiis jimco oo aan dhankaas ka soo qaadanay oo hadda aan dadka inta badan aysan xusuusanin wixii Soomaali lagu oran jiray iyo ereyo badan oo kale oo saas la mid ah
waxaa afka soomaaliga weerar ku noqday dalalkii Yurub berigii isticmaarka weerarka kusoo qaaday. sidoo kaleetana afaf kaleeto oo ka mid yahay afka Hindiga, afafka dalalka dariska nala ah saas si lamid ah. marka intaasba afka Soomaaliga uu u gegsanayay, uu iska celinayay. sababaha ugu waaweyn uu iskaga celinayana waxaa la yiraahdaa waxa weeye laba ugu waaweyn. mid waa suugaanta oo ah kaydka ugu weyn oo Soomaaliga uu leeyahay, waa suugaanta. suugaan aad u qurux badan oo aad u weyn oo aad u xoog badan ay Soomaalidu leedahay. kan xigana waxa weeye wax walba oo waagii hore Soomaalidu ay adeegsan jirtay intaanan soo gelin dalalkii shisheeye dalka dhulka qabsaday intaanan soo gelin, wax walba oo aan adeegsan jirnay waa wax annaga aan samaysanay aan jirin, marka magacyaan u lahayn berigaas. laakiin de waxa afkana mar walba sidiisu uu isbedelaa oo waxa ku dhaca waxbaa kusoo kordha, waxbaa ka dhinma. anigu waxaan dhihi lahaa afka Soomaaliga aad u xoogan yahay, weliba waa af qoran. marka maadaama uu yahay af qoran wuu adkeysanaya, ilaa xad wuu adkeysanaya. Soomaalida dhibaato fara badan ku dhacday 30 sano ugu dambeysay ama dhowr iyo 30 sano ugu dambeysay. marka dadka qaar waxay yiraahdaan afkii aad u nusqaamay. dhimaal waa jiraa, wuu jiraya mar walbaba, laakiin haddana horumarna wuu jiraa oo aad buu u xoogan yahay afkan dhihi lahaa. qurba joogta halkay ugu jirtaa horumarinta afka hooyo? su-aasha qurba joogta iyo af Soomaaliga. qurba joogta wax badan ay kusoo kordhiyeen afka Soomaaliga. oo xarumo waxaa jira cilmi baaris oo dibadaha ku yaalo oo dad badan oo Soomaali ay ka shaqeeyaan ama ay la shaqeeyaan. sidaas kale waxaad arkaysaa shisheeye fara badan oo af Soomaali ku hadla hadda, qaarkood ku heesa, qaarkood ku gabya. marka kaalinta ay ugu jiraan qurba joogta horumarinta afka waa mid muuqatan dhihi lahaa aniga, oo maaragtay aad iyo aad u muuqata. kaalin intii la eg ayuu ku jiraa afafka lagu hadlo Afrika? afka Soomaaliga wuxuu ka mid yahay afafka ugu horeeya qaaradda Afrika. faan ma aha. hay-ad waxaa jirta midowga Afrika ay leeyihiin oo afafka u qaabilsan oo ACLAN la yiraahdo, ayaa cilmi baaris la sameeyay oo lagu kala saaraya afafka siday u kala horeeyaan. waxaa loo sameeyay shuruudaha lagu xiray afku waa inuu shuruudaha soo buuxiyaa si loogu aqoonsado in uu yahay af muhiim ah oo safka hore ugu jira afafka qaaradda Afrika. ilaa 2,000 af kuwa ku dhawaa qaaradda looga hadlaa. afka Soomaaliga wuxuu ku jiraa kuwaas ugu horeeya, maxaa yeelay waxaa la yiri ay ka saarto dhimaalka ku dhici karo dhan ay kala dagaalanto. ugu dambeyntii akademiyada AGA bal wax noo sheeg Cabdiraxmaan. akademiyada waxaa iskale dalalka geeska Afrika ee afka Soomaaliga looga hadlo ayay ka wada dhaxaysaa. xarunteedu waa magaalada Muqdisho, laakiin xarumo kale waxay ku leedahay geeska Afrika oo idilba. saas darteed akademiyadu waxaa waa tiirka ugu weyn oo maanta u taagan ama loogu talagalay afka Soomaaliga xoojintiisa iyo dowladdiisa. waa mahadsantahay Maxamed Roberto. asalaam. aad aad mahadsantahay. kacasu waxa waa aqoon-yahano qoraa Cabdiraxmaan Cabdidoon oo ka wareystay maalinta caalamiga ee afka hooyo ee ku beegan 21 Febraayo 2025. wareysigan waxaa qaad aniga Maxamed Roberto. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.